لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. weli waxaan ku dhex jirnaa suuratu ancaam. waxaa noogu soo dambaysay kooxdii nebinimada sheegatay iyo inuu ilaahay tilmaamay inuusan jirin qof ka dulmi badan qofka ku been abuuranaya ilaahay ama dhahaya waa la ii waxyooday asagoon waxba loo waxyoonin, yidhi waxaan dejinaa wixii ilaahay soo dejiyey oo kale. kuwa daalimiinta haddaad arki lahayd wakhtigaasa malaa'igta ayadoo la garaacayay gacmaha u fidinayaan oo ay leeyihiin soo bixiya nafafyaalkiina. maanta waxaa laydinku abaalmarinaa cadaabkan ugu xun, waana wixii aad alle dushiisa xaqla-aanta ku dhahdeen iyo kibirkiiniida. waxaad noo timaadeen qiyaamaha loo leeyahay idinkoo kelikeliya waxba haysanin, mana saa idin abuurnay markii hore. wax walboon idin siinayna waxaad uga soo tagteen dhabarradiinna gadaashooda, mana u jeedno. waxaad ilaahay shurakada uga samayseen inay joogaan. waxaa go-ay xiriirkii idinka dhaxeeyey, waxaana dhamay wixii aad been abuuran jirteen. ina allaha alle faaliqu lxabbi, xabadda midka kala dhambala waaye. ina allaha ilaahi faaliqu lxabbi, xabadda midka dilaaciya waaye, iyo wannawa laftimireedaba. yukhriju wuxuu ka soo saaraa alxaya waxa nool ayuu ilaahay bixiyaa min almayiti, meyd xaggiisuu ka soo bixiyaa. wa mukhriju lmayita, meydkana midka ka soo saara waayo ilaahay min alxayi, xayi iyo wax nool xaggiisa. daalikum kiina allaahu alla waaye. fa amaa sideedaa tu'fakuuna laydin eela, sidee xaqa laydinkaga leexiyaa allaha saa wax u kala badbarayo, saa wax u kala maamulaya waa rabbigiini, waa ilaahii idin qalqay. ina allaha ilaahay faaliqu lxabbi, xabadda allaha dilaaciya waaye subxaana wa tacaala. waa midka kala jeexo ee dhambala ee geedka weyn ka soo bixiya. xabadda waa raashinka iyo miraha la cuno. mar allaala qofka beeralayda markuu intuu dhulka qodo uu ku rido markaa ku daboolo wuu ka soo tagaa. ilaahay baa intuu dilaaciyo subxaana wa tacaala geed weyn oo marka dambe raashin la cuno isku badbaraya, ilaahay baa ka soo bixiya subxaana wa tacaala. waan soo marnoo waxay la mid tahay afara'aytum maa taxrufuun, ka warrama waxaad beeraysaan. aantum tasracuunahu am naxnu zaaricuun, ma idinkaa beera mase anaguu dhahay ilaa subxaana wa tacaala. haddaan beeni lahayn waxaanu ka dhigi lahayn xutaaman iyo burbur. fadaltum tafakkahuuna inaa la muqramuun, markaasaad yaabi lahaydeen xabaddii dhulka aad ku rideen. ilaahay hadduu rabo wuxuu ka dhigi lahaa wax ciidda ku xallismoo markaa baaba'ay. ina allaha ilaahay waa faaliqu lxabbi, xabadda midka dhambala ee kala dilaaciyo geedka weyn ka soo bixiya waaye. oo la yukhriju alxaya, yukhriju ilaahay wuu bixiyaa subxaanahu wa tacaala alxaya, waxa nool ayuu min almayiti, meyd xaggiisa ka keenaa. wax meyd ahaa ayuu ilaahay ka soo jiidahayaa uuna ka keenayaa wax xayi ah oo markaa nool. meydka haddaanu ka dhigno qof kaafir ah ayaa qof muslim ah dhalaya, waa suuragal. yukhriju alxaya, yukhriju wuu bixiyaa ilaahay alxaya waxa nool ayuu min almayiti, meyd xaggiisa ka keenaa. ama dhibicda biyaha ah ee bani aadamka laga abuuro waa meydoo kadibna qof nool baa ka soo baxaya.
ukuntu waa maydo, wax nool baa ka soo baxa. wa mukhriju lmayit, maydka midka ah ama midka bakhtigaa ka soo saaro waaye ilaa subxaanahu wa tacaala. wa mukhriju maydka xaggiisa waa midka ka soo saara min alxayi wax nool, oo wax nool ayaa wax mayda dharaayo. qofkii xayiga ahaa ee mu'minka ahaa yacnigiisii mayd noqonayo ama kaafir. daalikum kiina allaahu alla waaye. fa amaa sideedaa tu'fakuuna laydin dadbaa, see xaqa laydinkaga leexiyaa. faaliqu lisbaaxi waa subaxi midka dilaaciyo ilaa subxaanahu wa tacaala. iftiinka subaxii ayuu ilaahay dhambalaa. habeenka sida loo joogo oo mugdi loogu jiro ayaa waxaad arkaysaa iftiin soo baxay. habeenkii inta la dilaaciyo la kala dhambaloo la jeexaa iftiinka isbaaxa iyo subaxii nuurkiisii iftiinkiisa allah dilaaciyo waaye. wajacala waa uu yeelay alleyla habeenkiina sakanan mid degan buu ka dhigay. habeenka iyo maalinta isku fiha. maalinta wax badan bay habeenka kaga duwan tahay. maalintu waa wakhti ceysh loogu talagalo, qaylo iyo buuq, sawaxan iyo iftiin. xataa dadka gobolka mida ma seexan karaan maalintii, laakiin habeenkii asaga sidiisaaba sakan ah, wax xasilan waaye. wajacala alleyla, habeenkiina ilaahay sakanan buu ka dhigay mid xasilanoo deganoo dadkuna ay sakanaanay askunaanay xasilaanay markaa jiiftaan. waashamsa, qoraxda iyo waalqamara dayaxana xusbaanan, xisaab buu ka yeelay ilaa subxaana wa tacaala. kuwa xisaab ku socda ayuu ilaahay ka dhigay. daalika kaa taqdiiru lcasiizi, allaha casiiskaa taqdiirkiisii, qadaritaankiisa iyo jangoyntiisii waaye. alcaliimi ee cilmiga badan. shamsada iyo qamarkuu xisaabta ka yimaadaa. shamsaduna waa maalintii, qamarkuna waa habeenkii. markuu habeen yimaado, maalin ay dhammaatuu habeen yimaado, hal maalin baa noo go'daan leenahay. 7 bir markay saa isku beddelaan usbuuc baa dhammaadiyo 7. 30 maalmood markay isku beddelaan bil baa dhammaato, mushaharaadkiibaa la bixina iyo kirooyinkii iyo wax allaala wixii biilal ahaa. macnaha xisbaan buu ilaahay ka dhigay subxaana wa tacaala. xisaab kuwa ah oo xisaab ayuu ilaahay ka yeelo, kuwa xisaab markaa ku socda. washamsa, qoraxda iyo waalqamara dayaxiina xusbaanan buu ka yeelay ilaahay, kuwa xisaab ahoo xisaabta markaa ku socda. daalika taqdiiru lcasiizi, allaha casiiskaa taqdiirkiisii, qadaritaankiisii waaye arrintaa. alcaliimi ee cilmiga badan. faaliqu lisbaaxi, aroortii iftiinkii subaxeeda allaha dhambaloo dilaaciyey. wajacala yeelay alleyla habeenkiina wuxuu ka dhigay ilaahay sakanan mid sakan ahoo xasilan oo degan. waashamsa, qoraxda iyo waalqamara dayaxuna xusbaan, xisaab buu ilaahay ka yeelayo waa kuwa xisaab ku socda. daalika taqdiir, daalika arrinta taqdiiru lcasiizi, allaha casiiskaa qadaritaankiisa iyo karitaankiisii waaye. ilaahay waa awooday. alcaliimi ee cilmiga badan. wahuwa ilaahi alladii waa macbuudkii jacala yeelay lakum adinka annujuuma, xidigihiina idin yeelay, litahtaduu si aad ugu hanuuntaan biha xidigaha fii dulumaati albari, bariga mugdiyaalkiisa iyo waalbaxri, dulumaadka baddaba. qad fasalnaa, waanu kala cadcadaynay oo waa kala saarsaarnay al-aayaati, aayaadkana liqowmin qoom baan u kala cadcadaynay yaclamuuna ogaanaya. ilaahay haddana xidigihii buu idin yeelay subxaana wa tacaala. aayad iyo calaamadba calaamada kale waxay kusii tusaysaa awooddii jiritaankii waxdaaniyada ilaa subxaana wa tacaala. shamsadu lagama maarmo. haddii 3 maalmood qorax la waayo dadku dhibaatay asiibtaa. waad u jeedaa dad fara badan ama wadamada gobol ka mida shamsadii qoraxdaba aan laga arkin. dhibaato fara badan inay ku taho hal maalin ay soo baxdo waa laysku laayaabaa la leeyahay. ama waxay soo aadaanba meelaha qoraxdu ay bannaanka u taalo. shamsada waa nimcooyinka ilaahayna siiye kuwa ugu waayay subxaana wa tacaala. xataa iftiinkeeda iyo shucaaceeda jasadka qayb ka mid ah wuxuu u yahayba nimco iyo wuxuusan markaa ka maarmin. waalqamara,
dayaxana saasoo kaleo iftiinkiisa iyo sida ay dadka ugu hamiinaan waa nimcooyin aad iyo aad markaa u weyn. haddana waxaana loo tilmaamayaa xidigaha waa allihii jacala yeelay lakum adinka annujuuma xidigahana idin yeelay litahtaduu si aad ugu hamiintaan bihaa xidigaha fii dulumaati albarri barriga mugdiyaalkiisa waa bannaankii walbaxri badda labadaba. qofka musaafirka ah ee barriga ku socda haddaa la reer magaaloobay maahee xidigaha wax lagu xisaabsan jiray. xidigta markaad fiiriso jihada mashriqkaa jirta iyo maqribbaad kala ogaanaysaa. dadku dad indheer garabay ahaan jireen, aayaadka allay wax ku qiyaasi jireen. sidaas darteed baa qofku mar allaale markuu socdo barriga ku safro jidka iyo meeshay jihadu ka jirta uu ogaan waayo xidigaha unbuu fiirina. markaasuu si fiican u ogaanayaa meesha uu joogo. nimanka maraakiibta kaxeeya ayagana saasoo kale waayo walbaxri badda mugdiyaalkiisana xidigan baa lagu hameynaa. xidigahaasaa qofka kaxaynaya oo meel allaala meesha uu rabo markaa geynaya. waanu soo marnay ama way noo imaan doontaa. waa calaamaad wabinajmi hum yahtaduun. calaamaad iyo xidigo aad ku hamiintaan baan samaynay buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. qad fasalna alaayaati aayaadkiina waanu kala saarsaarnoo waxaan u kala cadcadaynay liqowmi qoom oo yaclamuuna garanayo ogaanaya. wahuwa ilaahi alladii waa allihii ansha'akum idin amaamuday ama idinka qalqay min nafsin waaxidatin hal naf keliya xaggeeda. mustaqar baa nafsadii u sugnaatay waa makaanu sugnaasho iyo wa mustawdacu makaanu wadiica dhig. hal naf buu ilaahay idinka qalqay waa aadam. annaasu min aadam wa aadam min turaab. dadkoo dhan aadam bay ka ahaadeen, aadamna ciiduu ka arkay subxaana wa tacaala nebigiisa. qoom aabbayaalkood ku faantamayana way iska dhaafi doonaan. hadday dhaafi waayaanna alla agtiisa bahalka juclaanka la yidhaahdo doorshaanka adxar walwaalka kaasay ka liiban doonaan. kaasa xarada ku wata sankaysaa ugu jiidaya iyo afkeen maantoo dhan baad garaynaya. kaasaaba ka qiimo iyo sharaf badan. haddii aabbayaalkood faankay ku faantamayaan iyo liididda qabiilooyinka kale ay liidayaan hadday dhaafi waayaan macnaha. wahuwa ilaahi alladii waa allaha ansha'akum idinka amaamudo idinka qalqay min nafsin waaxidatin hal naf keliya xaggeeda. famustaqaru waxaa u sugnaaday nafsadii makaanu sugnaasho iyo wa mustawdacun makaanu wadiica dhig. qad fasalna alaayaati aayaadkiina waanu kala saarsaarnay oo waxaan u kala cadcadaynay buu yidhi ilaahi liqowmin qoomkaasoo yafqahuuna fahmaya. qoom garaad lehoo kasmo leh oo fahmahaya aayaadka alleh yaasaan ugu cadcadaynaa. famustaqarun wa mustawdac. mustaqarka waa raximka hooya la yidhaahdaa. mustawdacay makaanu wadiica dhigana waa kayd baa la yidhaahdaa. ila mustawdaca waa baqaarkii meelaha wax lagu kaydiyo. idan xilli baad kaydsanaydeenoo waa intuu qofku ka soo bixinba dhabarka aabbihii. waayo dhabarka aabba intuu qofku ku jiray biyihii meeshiisii ku ahaa. markii intuusan ahayn waa mustaqiroo makaana wadiica dhig iyo baqaar buu ku jiraa. markay soo qudmaan oo raximka hooyo lagu daadiyo intaa ka bacda waxay noqon mustaqaroo meeshaasay markaa ku sugnaanayaan. alam nakhluqkum min maa'in mahiin fajacalnaahu fii qaraarin makiin ilaa qadarin macluum faqadarnaa fanicma alqaadiruun. meeshuu ilaahay ka yidhi miyaanan bidixdiyaa idinka abuurin? miyaanan makaan qaraar ah fii makaan waxaa yeelna fii qaraarin makiin waa raximka hooyo waa la ilaaliyey. waa lagu shubay oo mar allaala markay biyihii ku dhaceen hooyo hadday istaagto mar hadduu ilmuhu abuurmaan iyo hadday cararto hadday biyo dhaamiso hadday jaranjaro fuushay ka soo degta ka soo daadan maayaan. ilaahay baa meeshaa ku kaydiye mustaqar waayo waa makaanu sugnaasho waa raximka hooyo intaad markaa ku jirtay. sidaa darteed mustawdacana waa makaanu wadiica dhigoo waa dhabarka aabbo intaad markaa ku jirtayo biyaha ina raggu waxay uga jiraan dhabarka sida aayado qur-aanku ay tilmaamayaan. dumarkuna waxay uga jiraan kalxanaha.
saasaanu soo marnay. saa darteed buu ilaahay tilmaamayaa famustaqarun baa u sugnaadayoo marna wuxuu ku jiray raximka hooyo, marna mustawdac iyo makaano wadeeca dhig baa u sugnaatoo dhabarkii aabbuu ku jiray. qad fasalna alaayaati aayaadkana waanu cadcadaynay liqowmin yafqahuun qoom fahmaya. wahuwa ilaahi alladii allihii waaye anzala dejiyey min alsamaa'i xagga sare maa'an biyo ka soo dejiyey. cirkuu ilaahay biyo idinkaga soo dejiyey fa akhrajnaa waxaan ku soo saarnay buu yidhi ilaahay bihi biyaha nabaata kulli shayin shay kasta dhaladkiisa. wax kasta oo nabaad ah oo baxoo dhul ku dhaliyo yaan biyaha ku soo bixinay. fa akhrajna waan ku soo saarnay minhu nabaadkiina khadaran cagaar. idan geedka marka ugu horayso dhulka ka soo baxayo waa cagaar. nukhriju aan ka soo bixinayno minhu khadarka xaggiisa xabban xabad waa miro mutaraakiban iskor saaran rasaysanoo saa isugu taxan. wa min annakli timirta xaggeeda min talcihaa ubaxeeda xaggiisa ama fiideeda qinwaanan baa ahaaday laamo daaniyatun oo markaa dhow. wa jannaatin beerooyinna waan ku soo bixinay oo min acnaabin canabyo ah. wazaytuun iyo geedkii zaytuunka la yidhaahdo. iyo warumaan bahalka rumaanka ah. mushtabihan xaal uu yahay mid isku eg iyo wagayra mutashaabihin midaan isshabihin oo aan isu ekayn oo kala duwan. unduruu fiiriya marka eega idaa famarihi mirihiisa fiiriya. idaa afmara markuu mireeyo geedku markuu soo baxayay ee yariiska uu ahaa cagaarkana ahaa cabbaar iyo marxalad buu isbedelaa marxalad kale. beeraha marka aad fiiriso maalinba maalinta ka dambaysa iyo xilliga ka dambeeya ayuu leeyahay. koonku waa la mid. subaxii mar allaala marka waagu baryahayo saacadba ka dambaysa makhluuqa iyo koonka ilaahay cajaa'ib gooni baad ka arkaysaa. sidaa darteed baa ilaahay wuxuu leeyahay ama tilmaamayaa fiiriya. unduruu eega oo fiiriya ilaa famarihi mirihiisa fiiriya. idaa afmara markuu mireeyo markuu miraha saa u soo bixiyo fiiriya. wayancihi bislaashihiisana fiiriya. markuu kuu soo baxayo waa ceyrin waa cagaar ma la cuni karo ama si kaleu u soo dhadhama. xabbaar markuu sii joogo wuuse sii bedela waa sii bislaanayaa. markuu bislaadana fiiriya. markuu miraha soo bixiyana fiiriya. inna fii daalikum kiina la aayaatin aayaad baa idin ugu jira liqowmin qoom oo yu'minuuna rumaynaya. idan fiirmadan fiiriya layska fiiriya keliya ma aha, waa nadar ictibaar leh. waa fiiro aad ku caqli qaadanayso ku ogaanaysa isbeddelkan saan waxa u bedelaya inay jirto awood ka saraysa, inay jirto awood xoog leh, inay jirto awood wax kasta ka sarraysa oo arrintan samayn karto khalqin kartaa. cid sheegatoon allahina ma jiro subxaana wa tacaala. qoom mu'miniin ahoo rumaynahayay aayad ugu jiraan. wahuwa ilaahay allihii waaye anzala dejiyey min asamaa'i cirka ama xagga koromaa'an biyo ka soo dejiyey. fa akhrajnaa waxaan ku soo bixinay bihi biyaha nabaata kulli shayin shay kasta nabaadkiisa, shay kasta dhaladkeeda dhalanayo dhulka nabaadkiisa ka soo baxaya biyahaasaan ku soo bixinay. fa akhrajnaa waan soo saarnay minhu nabaadkii xaggiisana khadiran cagaar baanu ka soo bixinay oo mar allaala markuu kow soo baxayo waa cagaar. nukhriju aan ka soo bixinayno mar allaala markaan cagaarkaa ka soo bixinay cagaarka minhu xaggiisa xabban xubub waa miro mutaraakib ahoo isku rasaysanoo iskor saaran isdulfuule saa u taxan bulleyda oo kale markaad fiiriso. mar allaala markaa daaha iyo waxa saarnaa aad saa uga qaado saasay markaa u taxan yihiin. waxaanu ka dhignay xubuub ama xabad miro ah mutaraakiban oo iskor saaran. wa min annakli timirtii xaggeedana min talcihaa fiideeda xaggeeda
ama min talcihaa ubaxeeda. waa meesha markay ka soo baxaysana qinwaan baa ahaaday laamo, ilan laamahaasaa timirtii ay ku dhegan yihiin. daaniyatun ee markaa dhow. daaniyada markii laantu ay saa u soo baxdo oo mirihii ay ku soo aruurto ee ubaxii kor ma aadayo, hoosuu u soo laalaabmaya. waa daaniye marka, waa dhow yihiin. sababta kor loogu qaadi waayo waxay tahay bani aadamkaa la rabaa inay ku intifaacaan dhulkay joogaane. qinwaanu miro ama intaqaana laamo. daaniyatun markaa dhow. wa jannaatin waxaan kaloo ku soo dhalnay biyaha jannaatin beerooyin oo min acnaabin canabyo ah. wazaytuun iyo zaytuun geedka lagu magacaabo. saytuunkan caadigee la shiidee la cuno ma aha inta badani. saytuunkan waa midka nafciga dheeraadka leh ee suuratulmu'miniin aan ku soo marnay ee ka baxa dhulka siinaa sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala. zaytuun baa ka soo baxa oo tunbatu biduhni wasidqi lilaakiliin. goosaarna wuu noqdaa, ruutigii kibistaa lagu cuni karaa. saliidna waa yahay, waa meelkaa saliidda laga sameeye marna alla ku dhaartay watiini wazaytuun wa tuuri siiniin. geedkaa zaytuunkana waan waa soo saarnay iyo warumaana, bahalka rumaanka la yidhaahdo. waa geed asagana nafci lehee markaa la cuno mushtabihan xaalo uu yahay mid mushtabih ah oo isku eg iyo wagayra mutashaabihin. kuna waa u shabahay isku eg yahay mirihii, kuwana way kala duwan yihiinoo wagayra mutashaabihin waa kuwo isku eg kayrkooda. kuwa isku eg markaa ma aha waayo macnaheeda. unduruu fiiriya marka ilaa amarihi mirihiisa fiiriya. ilaa amarihi mirihiisa xaggiisa fiiriya. miraha markay soo baxayaan fiiriya. idaa afmara waa markuu mireeyo. markay miruhu markaa soo baxaanna fiiriya. wayancii bislaafihiisana fiiriya. farqiga weyn ee u dhexaysaad u cibro qaadataan. inna fii daalikum kiiti aayaad ayaa waxaa ugu sugan liqowmin qoomkaasoo yu'minuuna rumaynaya. wajacaluu waxay u yeeleen bal iska daa waxaa nimcada ah iyo aayaadkaas dhammaan la soo tusiyey inay bal caqli qaataan, ay shirkiga alle ka hufaan oo keligii ay caabudaan, ay gartaan awoodda inuu keligii leeyahay yaa loogu talagalay. dhinac kale u lexdeen mushrikiinta. wajacaluu waxay u yeeleen lilaahi ilaahay shurako aljinna oo jinni ah. macnaha wajacaluu lilaahi aljinna, ilaahay jinnigii bay shurakaa uga yeeleen. kayrkiis bay caabudeen. ilaahay meeshii caabuda la yidhi jinni ayay uga sameeyeen shurako. idan jinnigii gobolka mida caabudi jireen. wa khalaqahum waxaal bay u sameeyeen khalaqahum uu abuuray. jinka iyo ayaga iyo kulliba ilaahay baa abuuray subxaana wa tacaala. wakharaquu way dilaaciyeen ama waxay jeexeen lahu asaga, waxay ka soo jeexeen baniina wiilal wa banaatin iyo gabdho bikayri cilmin cilmi la'aan. subxaanahu wuu nasahan yahay ilaahay, wuu ka nasahan yahay owlaad. wa tacaala wuuna ka sarreeyaa camaa yasifuuna waxay u sifaynayaan. waxay u sifaynayaanay ku tilmaamayaan ilaahay waxaasuu ka sarreeyaa kana nasahan yahay. ilaahay nusqaanna ma laha, owlaadna ma laha, gabdhana ma laha, baniinna ma laha, banaadna ma laha. am lahum ilaahun hayruullah, ma waxay leeyihin ilaah alla ka soo haray. am lahu lbanaat walahum lbanuun, ilaahay ma gabdhahu leeyahay ayaga ma wiilashay leeyihiin buu dhahay ilaahay. in badan buu u tilmaamay waxaa inaysan waxba ka jirin. wajacaluu way yeeleen lilaahay bay shuraka uga yeeleen aljinna jinnigii shurakaa. wajacaluu way u yeeleen lilaahi ilaahay aljinna jinnigii bay shurakaa uga sameeyeen. xataa saan soo marnay quluuxiya mararka gobolka mid way magangeli jireen. waannahu kaana rijaalun min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fazaaduuhum rahaqa. markaasuu qoob iyo kibir u siyaadiyey. waxa kasta hadda ee soo dega, ama boorana ha noqdo, ama mingis ha noqdo, ama wadaaddo la fooxiyo ha noqdo, waxaasoo dhanba waa jin sida mataqaanaa la tilmaamayo.
sidaa darteed bay magan galayaan, waxbaa laga mudooyaa, waxbaa laleeya waxaasaa laydinka siinaa dhaafa. intii oo dhan bay ilaahay waxay uga sameeyeen shuraka subxaana wa tacaala. wa khalaqahum, ilaahana qalqay subxaana wa tacaala. waa xaal bay ilaahay jinka shuraka uga dhigeen. khalaqahum uu abuuray ayaga, jin ilaahay, ayagiina ilaahay baa qalqo, waa makhluuq ilaahay, idan way siman yihiin. wa kharaquu, waxay ka soo dilaaciyeen ama waxay ka jeexeen lahu ilaahay baniina, macnaha waxay dhaheen wiilal buu ilaahay leeyahay. macnaha baniin ilmaha aad dhashaana waa wax adig kaa yimid oo kaa soo jeexmay. saa darteed baa ilaahay waxay ka soo dilaaciyeen lahu xaggiisa baniina wa banaat, wiilal iyo gabdho. waatii suuratu tawbay noogu imaan doontaa. yuhuudna waxay yidhaahdeen cuseyr ibnullah, nasaarana waxay dhaheen masiix ibnullah. masiix waa canug ilaahay, ciise waa canug ilaahay, cuseyr waa canug ilaahay, malaa'igtu waa banaad iyo gabdho ilaahay. waxya uu dhalay, waxyaabo badan oo noocaas ay ilaahay u sameeyeen, waana bikayri cilmin, cilmi la'aan. cilmi ay u leeyihiin ma jiro. kaburat kalimatan takhruju min afwaahihim in yaquuluuna ilaa kadiban buu yidhi ilaahay. kelimad afkooda ka soo baxdaa weynaatay dembigeeda, mana ku hadlaayaan ilaa been meehee wax kale. iska daa wax kale, samaawaadka waxay sigeen inay go'go'aan, dhulkana uu jeexjeexmo, buuruhuna ay soo dumaan. an dacaw liraxmaani waladan, ilaahay baa walad leh. hadalka afkooda ka soo baxay xumaantiisa iyo dhibka weyn uu leeyahay. cirkana waa soo dumi rabay, dhulkuna waa go'go'i rabay, buuruhuna way soo hoogan lahaayeen buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala bikayri cilmin. subxaanahu ay tansiihan baa lahu sugnaatay. subxaanahu nasahnaantiisiiyey, waa nasahan yahay macnaha ilaahay. subxaanahu ilaahay wuu ka nasahan yahay waxa oo watacaalaa wuxuu ka sarreeyaa camaa yasifuuna, waxay ku sifaynahayaan, waxay ku tilmaamayaan buu ilaahay ka hufan yahay, daayiqna u ahayn. badiicu samaawaati, waa samaawaadka allaha abuuray, iyo waalardi amaa yakuunu, seebay ugu ahaanayaa lahu asagoo waladun walad. muxuuse ku falaya subxaana wa tacaala. sababta waxaa la tilmaamayaa ilaahay inuusan u baahnaynba owlaad. in kullu man fi samaawaati waalardi ilaa aati araxmaani cabdan. samaawaadii arla waxaa ku jira oo dhan ayagoo addoommo ilaahay u imaanaya subxaana wa tacaala. owlaad yaa u baahan? owlaad kow waxaa u baahan qof dhimanayo laba faraciisa inuu sii jiro. ilaahay waa xayi daa'ima, ma dhinto subxaana wa tacaala. ilaahay subxaana wa tacaala fatawakal cala aladii laa yamuut, allaha aan dhimanayn tala saaro. fatawakal cala alxayi aladii laa yamuut, xayi aan dhimanaynin waa ilaah subxaana wa tacaala. teeda kale waxaa owlaad u baahan qof dhibaato inay soo gaarto ka cabsanaya oo raba in garabkiisa la istaago. qof gaboobahayo duqoobaayo, haddayna ilmihiisa inuu ku baxsado markaa mudan. inta ilaahay wuu ka nasahay subxaana. badiicu samaawaati, waa samaawaadka allaha abuurkooda bilaaba loola jeedaa badiica. waa allaha abuuray, haddana meel uu ka fiirsaday ma jiro. asagaa bilaabay samaawaadka abuurkooda iyo waalard, arladaba. amaa sideedaa marka yakuunu lahu uu ugu ahaanayaa, uu ugu sugnaanayaa asaga waladun walad, waxaa lam takun aysan u sugnayn lahu asaga saaxibatun saaxib. saaxiibaddana xaaskaa loola jeedaa. xaas wax dhashana uusan markaa lahayn. horeyna waan u soo marnay matakhada saaxibatan walaa waladan. ilaahay saaxiibadna ma yeelanin, waladna ma yeelan subxaana wa tacaala. sidaa darteed baa in badan aflagaaday samayn jiray. jinkanna waxa waaye iyo owlaad alla waaye iyo malaa'igta saasoo kale iyo islaan jin baa laga dhalay iyo wasaafaad baanu ku soo marnay. hadallo badan oo noocaasoo kale ah ayay markaa tilmaami jireen. taasuu ilaahay xaggaasoo dhan baa la mamnuucayaa. waxa ay ku hadlayaan oo dhan baa waxaa laga dhigayaa oo la beenina waxaan waxba ka jirin. waa waxay afkooda ka heleen, waa waxay ayagu markaa iska leeyihiin, waa waxay markaa iska dhahayaan. intaasoo dhan wax ka sugnaaday oo ka jira malabuu ilaah leeyahy subxaana wa tacaala. see owlaad ugu sugnaanaysaa ilaahay asagoosan saaxiibad iyo xaas markaa yeelanin? xaas la'aan asagoo markaa ah sidee ku sugnaanaysaa? ilaahay subxaana wa tacaala waxaasoo dhanba waa ka hufan yahay, waana ka nasahan yahay. waata ilaahay yidhi asagoo tilmaamaya fastaftihim alirabbika albanaat,
weydii rabbigaa ma gabdhaha u sugnaaday walahum albanuun am khalaqna almalaa'ikata inaathan mase malaa'igtii baan dhadig ka abuurnay wahum shaahiduun alaa inahum min ifkihim la yaquuluun been abuuradkooday ku hadlayaan walada allaahu ilaahidaa walad samaystay leeyihiin wa inahum lakaadibuun beenaalayaal waaye asdafa albanaati cala albaniin ma gabdhaha ayay wiilasha ka doortay maa lakum kayfa taxkumuun see wax u xukminaysaan afalaa tadakkaruun ma waana qaadanaysaan miya am lakum sulطaanun mubiin ma xujo cad baa idiin sugnaatay fa'tuu bikitaabikum in kuntum saadiqiin keena kitaabka waxaa ku qor haddaad run sheegaysaan wajacaluu baynahu wa bayna aljinnati nasaban ilaahay iyo jinka dhexdiisay xiriir kaga sameeyeen jinka nooca dumarkaa dhaleen iyo wax noocaasoo kaley leeyihiin walaqad calimat iljinnatu inahum lamuxdaruun jinnigiina wuxuu ogaaday in lasoo xaadirinayo saa darteed buu ilaahay hadalkooda beeninayaa badiicu asamaawaati waa allaha samaawaadka abuuray iyo waalardi ardideedaa yakuunu lahu ay ugu ahaanaysay uga sugnaanaysaa asaga waladun walad annaa yakuunu lahu walad waxaa lam takun aysan u sugnaanin lahu ilaahay saaxibatun wax saaxibad ah wa khalaqa waa allaha abuuray kulla shayin shay kasta wahuwa ilaahayna bikulli shayin shay kasta dhammaantii caliimun waayo alla ku cilmi badan subxaana wa tacaala shay kastana alla ku cilmi badan oo ogaalkooda iyo cilmigooda u sugnaaday ayuu ilaahay ahaaday saa darteed bacdamaa saas ay tahay wuu ka nasahan yahay waana ka hufan yahay waana ka sareeyaa daayiqna uma aha wax owla ah oo u cuntantan ma aha ilaahay inuu walad yeesho subxaana wa tacaala ilaan bani aadamka qaybtooda aad iyo aadka u gardarada badan oona dulmigana badan kuwaasaa sidaa markaa ku hadla ina allaha ilaahay faaliqu lxabbi waa xabadda allaha kala dilaaciya iyo wannawa laftimireeda yuhriju wuxuu ka soo bixiyaa alxaya waxa nool midka ee ka soo saara waayo ilaa subxaana wa tacaala yukhriju wuu bixiyaa alxaya waxa nool buu min almayiti meyd iyo wax dhintay xaggiisa ka keenaa wamukhriju almayita meydkana midka ka soo saara waayo ilaahay min alxayi wax nool xaggii daalikum kiina allah alla waaye fa annaa sideedaa tu'fakuuna laydin dadbaa oo xaqa laydinkaga leexinaya faaliqu lisbaaxi iftiinka subaxa allaha dilaaciyo waaye wajacala wuu yeelay alleyla habeenkiina sakanan xasil iyo mid degan buu ka dhigay dadkuna ay degaan waashamsa qoraxda iyo waalqamara dayaxiina xisbaanan xisaab buu ka dhigay oo xisaab buu ka yeelay ilaahay daalika arrintaa taqdiiru alcasiizi allaha casiiskaa taqdiirkiisii awooddiisii karitaankiisii waaye alcaliimi ee cilmiga badan wahuwa ilaahay alladii waa allihii jacala idiin yeelay lakum adinka annujuuma xidigaha litahtaduu saad ugu hanuuntaan biha xidigaha fii dulumaati ilbari bariga bannaanka mugdiyaalkiisa iyo waalbaxri badda dulumaadkiisii mugdiyaalkiisaba qad fasalna alaayaati aayaadkiina waanu kala cadcadaynay oo liqowmin qoom baan u kala saarsaarnay yaclamuuna ogaanaya wahuwa ilaahay alladii macbuudkii waaye ansha'akum idinka khalqee idinka amaamuday min nafsin waaxidatin naf keliya ah famustaqarun makaana sugnaasha u sugnaaday marka famustaqarun makaana sugnaashaa naftii u sugnaatay waa riximkii wamustawdacun io makaana wadeeca dhigoo waa dhabarkii aabbe macnooyin kalena waa ku jiraa qad fasalna alaayaati aayaadkiina waxaan u kala saarsaarnaan u kala cadcadaynay liqowmin yafqahuuna qoom fahmaya wahuwa ilaahi alladii waa allihii anzala dejiyey min alsamaa'i xagga sare maa'an biyo ka soo dejiyey fa akhrajna markaasaan ku soo saarnay bihi biyihii nabaata kulli shayin shay kasta nabaadkiisa iyo dhaladkiisa fa akhrajna waxaan ku soo saarnay minhu nabaadka xaggiisa khadiran cagaar nukhriju aan ka soo bixinayno minhu xaggiisa cagaarkii waayee xabban xabad iyo miro mutaraakiban
iskor saaranoo saa markaa u taxan. wa min annakli timirtii xaggeeda min talcihaa ubaxeeda ama fiideeda xaggeeda qinwaamun laamo ayaa ahaaday daaniyatun oo soo dhow. wa jannaatin iyo beerooyin, macnaha waxaa kala biyihii wa jannaatin beerooyin min acnaabin canabyo ah iyo wazaytuuna geedka zaytuunka iyo warumaan rumaanka geedka lagu magacaabo mushtabihan asagoo isku eg iyo wagayra mutashaabihin asagoon isshabahinoo kala duwan. unduruu fiiriya ilaa famarihi mirihiisa fiiriya idaa afmara markuu miraynayo, markuu mireeyo miraha fiiriya. unduruu ilaa famarihi famaartiisa iyo mirihiisa fiiriya geedka idaa afmara markuu mireeyo ee marka ay soo baxaan suu u yaalo. wayancihi bislaashihiisana fiiriyaba isku fiiriya saad u cibro qaadataan. ina fii daalikum kiina la aayaatin aayaad baa waxaa ugu jira liqowmin qoom oo yu'minuuna rumaynaya. wajacaluu waxay u yeeleen mushrikiintii lilaahi ilaahaybay aljinna jinnigii shurakaa uga dhigeen. shurakaa aljin shurako jinni ah bay u sameeyeen. waxaal khalaqahum ilaahna uu abuuray ayagii oo dhan ilaahay asaguu qalqay bay jinnigii shurako uga sameeyeen. wa kharaquu waxay jeexeen oo ay ka dilaaciyeenay ka soo jeexeen lahu ilaahay baniina wiilal oo macnaha waxay dhaheen wiilal buu leeyahay iyo waa banaatin gabdho waana bikayri cilmi la'aan. subxaanah ilaahay wuu nasahan yahay subxaana wa tacaala. subxaanahu nasahnaasha u sugnaatay ilaahay. subxaanahu ilaahay wuu ka nasahan yahay. wa tacaalaa waana ka sarreeyaa camaa yasifuuna waxay ku sifaynahayaan badiicu samaawaati samaawaadka allaha khalqay waaye khalqigoodana bilaabay iyo waalardi arladee amaa yakuunu lahu waladun si urad ugu sugnaanayse muxuu ku falayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxaa lam takun aysan u ahaan una sugnayn lahu asaga saaxibatun xaas. wa khalaqa kulla shayin shay kastana ilaahay wuu khalqay. wahuwa ilaahayna bikulli shayin shay kasta dhammaantii caliimun alla ku cilmi badan waaye subxaanahu wa tacaala. dalikum allahu rabbukum laa ilaaha ilaa huu wabillahi towfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.